deegaanka SSC ee dib u xiraynta gobolada banduulihii ciidanka Soomaaliland sareeye guuto Salebaan Barre Geesood ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay duleedka magaalada Buuhoodle soo dhaweyntiisa waxa ka qayb galay saraakiisha ciidanka difaaca gobolka Cayn Cuqaasha Isimada iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle banduulaha ayaa 6 bilood ee ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa waxaan uu gobolka Sool ka baxay markii dagaaladu halkaasi ay ka qarxeen soo dhaweyntiisa waxa ka qayb galay gudoomiyihii hore ee gobolka Buuhoodle Nasteex Maxamed Cabdille oo isagu halkan ugu horeyntii ka hadlay kuna soo dhaweeyay banduulaha deegaanka Buuhoodle saraakiisha ciidanka difaaca Buuhoodle dhinacooda halkan ka hadlay Cuqaashi waxgaradka iyo ismada deegaanka oo halkan si weyn ugu mahad celiyay banduulaha bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa taliya sare oo kamid ahaa saraakiisha ugu sarreeyay ciidanka Soomaaliland sareeye guuto Salebaan Barre Geesood oo ah ammaanduulihii ciidanka Soomaaliland ee ku xigay ninka la dhaho Nuux Taani taas maanta waxay cadeynaysaa in halka lagu kala dhaqaaqay isir ay noqotay bahashi muusana barti uu ku waday un bay ku socotaa waxaan leenahay muuse waa kugu soo dhaweynaa oo kugula furanaa halkaad ku wadid Salebaanna waxaan leenahay de kolba waxa joogtay gaashaandhigi iyo barti xogtoodan ay taale ciidanka Soomaaliland oo dhan waxa waraysiyo dhaadheer iyo xogta iyo waxa ay sidoo odayaasha iyo dhamaan ismada dhaqanka iyo deegaanada SSC iyo saraakiisha ciidanka SSC waa ka sugdoonaadna wad gaarsiin doontaa waxaan kugu soo dhaweynaa waxa gamca furan waxa halkaasna waxa cadaatay maanta in nin walba ninkiisa uu noqday meeshaan lagu kala dhaqaaqay رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعقبة لساني يفقه قولي اول الهي با مهد له مهدو سغناتay mahada kadib saxaafeedkan maanta halkan aan ku qabanayno anigu aan ku qabtay wuxuu daaran yahay marka hore anigu inaan iska warbixiyo iyo wixii kale aan ku dari karo sidaynu la wada socono 6 bishii February 2023 waxa dagaal ka dhacay magaalada Laascaanood kaasoo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo dadka shacabka magaalada Laascaanood dagaalkaas oo geystay khasaare fara badan oo naf iyo maalba leh xasuuq iyo aan loo meel deyn oo kala soo lahayn magaalada iyo la duqeeyay oo la burburiyay sida goobaha adeegga dadweynaha warshadii biyaha korontada iyo wixii la mid ah kaasoo dagaalkaas oo ilaa hadda aanu xalkiisii muuqan Soomaalilandna ay sidii u sii wadaan dagaalkaas oo ilaa hadda aan xalkiisii muuqan Soomaalilandna aanay bedelin mowqifkaas inay dhibaatada si kordhiso mooyaane anigu waxaan ahay magacayga waxa la yiraahdaa General Sareeye Guuto Salebaan Barre Xasan ama Salebaan Barre Geesood banduulihii ciidamada Soomaaliland guud maanta bishii 6 bishii labaad dagaalkii ka dhacay Laascaanood waxaanu ku kala aragti duwanaanay nimankii wasiirada ahaa iyo taliyaashii wasiiradii janamadii meesha joogay kaasoo iyagana si ugu muuqday anigana si ugu muuqday ahna ka dhibaatada badan keenay ilaa iyo maanta socda haddana aanu xalkiisii muuqan 7 bisha waxaan ka baxay Laascaanood khilaafka kadib Hargeysa ku noqday intii ka dambeysana wax shaqo ama qaban waxaan ku sugnaa gurigeyga ugu dambeyn maanta oo bishu ay tahay 3 bishii 6 oo dagaalkii wali socdo iyo duqeyntii waxaan la socodsiinayaa dadweynaha reer SSC iyo tolka u soo hiiliyay hiyal walaal intaba in aan ka soo baxay meeshaas oo aan iskaga yimi oo iska casilay xilkii aan hayay hadda kadibna aan doonayo inaan bal dadkayga dhibaatada la qaybsado la fikir noqdo wixii talo aan ku biiri karaan aan ku biiriyo
dagaalkaas Soomaaliland ilaa iyo haddeer halkii bay ka sii wadaa mana rabaan inay joojiyaan waxa la yidhi dhuunba af iyo muqalba u wareysa waxaan leedahay dadkayga goboladan Sool Sanaag iyo Cayn aad baan idinku bogaadinayaa dhabar adayga aad muujiseen waxaan idin leeyahay midnimadeena ilaashada dagaalku dhibaato badan buu leeyahay waa lagu dhimanayaa waa lagu dhaawacmayaa dhibaatooyin kale uu leeyahay halganka waxa leh lama rabo in waxa la dareemo guushu waxay leedahay aabayaal badan guul daraduna waxay leedahay hal aabe doodii oranayaan waa photoshop waa kan taliyaha bandulaha ciidamadiisii oo ka soo horeeyay baan ku soo dhaweeyay gobolka taliya waxaan ku leenahay ku soo dhawow ciidamada dib u xoreynta gobolada SSC gaar ahaan qaybta Buuhoodle taliyuhu isaga gaadiidkiisaba si aad iyo aad leh sharaf leh baan ugu soo dhaweynay gobolkana meeshuu rabbu ka tagi doona Soomaaliland waxaan leeyahay anaga wax bedel oran meeyay waa noo caawiseen oo waxa idinku hambalyeynaa sida waxaan aad ku soo dhaweynaynaa abaanduulihii ciidanka Soomaaliland Sarreeye Guuto Salebaan Barre Geesood oo la wada garanayo Salebaan waxa ku soo dhaweynaya maanta ciidankii adigu aad dhistay ee ku tacabtay oo ah kuwan ka hortaagan baa ku soo dhaweynaya ku soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow deegaankaagii alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan uga tagayba tolkayooda soo jabi waxay la tahay cid ka dambayso naf loo meesha ku hadhay ma jiro ciidankii Soomaaliland adaan noogu sareeyay mas'uulkii dhulbaanta ugu jiray baa hay'adaha ugu sareeya mar haddaad ka timid ina cambaasho maqaara oo aan tira ku jiray baa ku hadhay oo malay oo tira ku nahay abaanduula soo dhawow waa kaaga mahad celinaynaa aragtidaadan fiican ku soo dhawow gurigaagii iyo dalkaagii iyo dadkaagii soo dhawow baan leenahay inta haddaan ka gudbo SNM iyo taliyahooda Muuse Biixi waxaan u mahad celinaynaa xukuumadda maanta jirta ee wixii ay ahayd qarsan kari weyday kuwii hore waa qarsan jireen kani waa qarsan kari waay gobolada SSC-na waa fahmeen cid ku hadhaysaana ma jirto horey baan u idhi maqaarada ku hadhay laaya waxaan leenahay maqaarada idinku hadhay laaya annaga maaha idinkana wax idin tari maayaan nuux taale reerkoodii buu noqday Salebaan Barre Geesoodna reerkoodii buu noqday harti iyo isaaq baa loo kala baxay wax aanan doonayn cid nagu khasbi kartaa ma jirto aya ka tashiga dalka iyaga iyo dadka iyagana annaga leh laba kelmadood baan ku darayaa laba kelmadood ciidankii la magac baxay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ugu sareeyay nuux taani iyo Salebaan Barre Geesood waa baanduulihii iyo jalankii ciidanka ay ahaayeen waa mid walba reerkoodii buu maanta la safan yahay taasi waxay cadeynaysaa in nin walba uu ninkiisii noqday wax inaga dhaxeeyana aanay jirin ragii la sugayay ee ugu dambeeyay weeye aad iyo aad buu u mahadsan yahay waana soo dhaweynaynaa waxaanu kala oo iyadana mar labaad iyo mar saddexaad baa soo dhaweynaynaa halkani waa madashii gobolka Cayn degmada Buuhoodle ee aanu u astaynay qaniimada aan dhiigu ku daadan inay timaado oo aanu kula wareegno subhanahu wa ta'ala runtii waxaan ku soo dhaweynaynaa goobtan General Sarreeye Guuto Salebaan Barre Geesood abaanduulihii ciidanka Soomaaliland aad baan u soo dhaweynaynaa oo la qaatay dareenka dadkiisa qaatay oo adkeysan kari waayay dhibaatada ee soo dhawow General Salebaan runtii khibrad iyo aqoon iyo xogba waad nagu kordhinaysaa waad nagu kordhin doontaa halganka ee soo dhawow baan leenahay waxaan salaan kaaga haynaa hoggaanka dhaqanka sare ee SSC aad iyo aad bay ku salaamayaan kuna bogaadinayaan waxaan intaa ku darayaa ragga ku hadhay meesha waxaan ma waqti baa loo qaban doonaa maanta waxay maraysaa in waqti loo qabto waqtigaas uu idin ka dhicin
ninkii waqtigaa ka faa'iidaysanayo ka faa'iidayso dadkaaga la dareen noqo dhibaatada